السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وعنا ونكسن داوضي الميل والبا جوجتان با قضبضا آد وراركنا كو مغلي دونتانا وحا كميدا أفايانكا تي بيالفا يامر وحالي لهدلي ورباهين لغايا دالكا مصر ايا وحاو شاقي إنا تي بيالفو داقالامين انتقرايقو إنا كاقوان دالكا إيتوبيا هاسا يشاو داقالامين داد بدانو إيتوبيانا إنا حريات قاتان دلوينها إيتوبيانا qolo walba ay aayaheeda ka tashato afayeenka hadalkiisa ayaa laga dhadhaminayay inuu ay tahay TPLF waxay u socotaa inay kala dirto dalweynaha Itoobiya qolo kasto jecel inay dalka Itoobiya ka go'aan inay go'ayaan qodobada kale soo hadal qaaday waxa kamid ah Soomaalida iyo Oromada xaq waxay u leeyihiin inay go'aan ayadoodan ka tashadaan sidoo kale afayeenka ayaa waxa uu yiri dawladda Itoobiya hal meel ay naga qabsatay meel oo dhul ay maanta naga haysato ilaa waqtigan gobolka Axmaarada soo galayna guul baanu joognaa dawladda Itoobiya ayaa ku eedeysay dalka Masar inay taageeraan kooxda TPLF sanad iyo hub iyo ciidan inay siiyaan sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga dalka Itoobiya ayaa ciidamada TPLF gobolka Axmaarada ku sugan waxay u qabatay ugu yaraan 4 maalin isku soo dhibaan hadii kana dhamaantood halka lagu baabi'in doono qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 16 bisha 2021 hadaynu guda galo wararkeeni oo faahfaahsan afayeenka TPLF Getachew Reda mar uu xalay waraysi siinayay TV laga leeyahay dalka Masar ayaa waxa uu sheegay in ayna TPLF u dagaalamaynin xorriyad ay qoomiyadda Tigray kaliya ka qaataan dalweynaha Itoobiya afayeenka ayaa mar la weydiiyay uu hadaa tagtaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ama aad qabsataan dalweynaha Itoobiya danta aad ka leedin maxay tahay inaad mar labaad xukunka dib u qabataan ma waxaad rabtaan inaad dalweynaha Itoobiya si maamushaan sidii aad waagi hore u maamuli jirteen mise anjada kale oo ka duwan kii hore yaad haysataan afayeenka ayaa waxa uu ku jawaabay Tigraygu ama TPLF go'aankeedu waxa uu yahay inuu dadweynaha Itoobiya aysa ka tashado qoomiyadda ugu horeysa ee haftida laga qaadi doono ee dalweynaha ka go'do Itoobiya ka go'do doontana inay Tigray tahay sidoo kale waxa uu ku sheegay qoomiyadda labaad inay go'do xaq u leh inay tahay Soomaalida oo cadaadis weyn kala kulantay dalweynaha Itoobiya afayeenka ayaa sheegay sidoo kale inay Soomaalidu dagaalami jirtay waqti dheer ilaa waqtigan xilka ay nala dagaalami jireen jimcadaha ogaadeen waa sida uu sheegay afayeenka TPLF afayeenka TPLF ayaa waxa uu sheegay go'aankana waxa uu yahay markaan Addis Ababa tagno inaan iskugu yeerno waxgaradka dalka Itoobiya iyo aqoonyahanka waxgaradkuna ay ka soo shaqeeyaan dalweynaha Itoobiya meeshuu wajihi lahaa afayeenka ayaa wuxuu yiri qolo kasta in aftin laga qaado haday Itoobiya kasiimadahan iyo haday go'aysabana ay xor u noqon doonto afayeenka ayaa waxa uu yiri Tigray guul bay joogan meeshii ay mar joogeen wali way ka sii socdaan horumarna u soconayaan taladuna waxay tahay in talada la dhaafiyo Dr. Abiy Ahmed iyo dawladiisana meesha la dhaafiyo hadaan uu rabno inay Tigray go'aan maanta way go'i karaan wayna ku dhawaaq karaan hase yeeshee go'aanka aan leenahay ujeedadana sidaas ma aha afayeenka ayaa waxa uu yiri Soomaalida iyo Oromadu xaq waxay u leeyihiin inay ka go'aan dalweynaha Itoobiya maadaama ay yihiin qoomiyada in badan soo dagaalamay xorriyadoodii iyo xaq waxay u leeyihiin u dagaalamaya afayeenka mar su'aal laga weydiiyay inay dawladda federaalka sheegtay inay dhul ballaaran oo markii hore Tigray haysteen oo gobolka Axmaarada ka tirsan inay dawladdu dib u qabsatay ayaa waxa uu ku jawaabay sida tan dawladda federaalka Itoobiya haday dhab ka tahay inay dhul naga qabsatay ama waxa ay sheegaysaa uu run yahay may soo bandhigto oo dhahdo magaalooyinka Tigray ka talin jireen ayaanu maanta joognaa hase yeeshee afayeenku ayaa waxa uu sheegay inay TPLF dhulkii ay qabsatay dhul kale ku sii darsatay ayna joogsani doonin ilaa uu go'aanka ay leedahay ka gaadho afayeenka ayaa waxa uu yiri TPLF guul badan bay joogtaa dhul ballaaran way haysataa haddana waxa noo dhiman waa wax yar oo soo afjari doono ciidamada dawladda federaalka Itoobiya oo nala dagaalamo maanta jirana ma jiro ilaa maleeshiyada yar ah oo aqoonin tactikada dagaalka bay soo hubeynayaan waxaana hubka bay noo soo galbinayaan afayeenka ayaa waxa uu ku sheegay hadalkiisa inay TPLF maanta wixii ka dambeeyay ay go'aan ka qaadanayso talaabada laga qaadi doono xukuumadda uu Dr. Abiy hogaamiyo sidoo kale dawladda federaalka Itoobiya ayaa dalka Masar ku eedeysay inay taageerayaan TPLF hub iyo ciidan iyo
iyo sanad kalaba la garab taagayiin oo TPLF meesha ay taageerada ka helaysana uu yahay dalka Masar. Dowladda Itoobiya ayaa Masar waxay ku eedeysay inay TPLF taageerayso markastana ay la garab taagan tahay dhaqaalaha ay TPLF ku sii jirto ama ay dagaalka ku sii wado. Dalka Masar iyo dalweynaha Itoobiya ayaa waxa ka dhaxaysa xurguf xagga biyaha wabiga Niilka oo dowladda Itoobiya ay biyo xareenkaas wali shaqadiisii wado markastana ay hawlihiisu halkiis ka sii socdaan. hase yeeshee dowladda Masar ayaa Itoobiya waxay ku eedeynaysaa inaan wax wada shaqayn ah oo labada dal ka dhaxeeyo una jirin biyahana ay wabiga Niil uu maslaxo weyn ugu jirto ama dalka Masar dadka Masar intooda badan ay biyaha wabiga Niil quutaan. dowladda Masar ayaa waxay rabtay meel dhaxada in isku yimaado oo dalka Masar wax dhiba kaga imanayna wabiga dalweynaha Itoobiyana waxa anfaca laga siiyo. hase yeeshee dowladda Itoobiya ayaa sheegaysa iyadu inay gorgortan ka galeen wabiga Niil markastana ayadu markii horeba ay siinayso dalkeeda waxa khayraadkiisa in ayadu xaq u leedahay inay go'aanka ka gaadho cid kalena ayna kala tashanaynin. sidoo kale dhalinyaradii kacdoonkii Qayro ee gobolka Oromia ayaa waxay ku hanjabeen inay mar labaad xiri doonaan wadooyin waaweyn oo ka tirsan gobolka Oromia. dhalinyaradan oo dhalinyaradii ka dambeysay kacdoonkii laga qaaday TPLF xilka ay uga tageen isbedelka uu Dr. Abiy Ahmed ku yimidna keenay ayaa waxay ku hanjabeen inay mar labaad xiri doonaan wadooyinka waaweyn ee soo gala caasimadda Addis Ababa ee u kala baxa gobolka Oromia iyo wadooyinka iyo dalweynaha kale ee Itoobiya. dhalinyaradan ayaa ku hanjabtay inay wadooyinkan oo dhan goyn doonto wax shaqayn doono gaariyahana u jirin hadii la tixgelin waaya ujeedada ay ka leeyihiin xiritaankaasi. dhalinyaradan ayaa waxay ku cabanayaan inay Itoobiya xaalad xun ku sii socoto siyaasiyiinta Oromada ee go'aanka ka gaari lahayd dalka ama jiritaanka Oromadana ay amankan u xidhayeen Dr. Abiy Ahmed. dhalinyarada ayaa ku doodaysa wadooyinka waaweyn ee xidhi doonaan inay ka mid tahay Hararga iyo wadada Addis lagu magacaabo ee soo gashay caasimadda gobolka Oromada. dhalinyaradan oo ah dhalinyaro isku xiran oo aad u tiro badan oo waqtigii kacdoonkii TPLF dhalinyaradii ka dambeysay inay gebi ahaanba TPLF banayso saaxadda siyaasadda ee dalka Itoobiya ayaa haddana ku hanjabaysa mar labaad inuu kacdoonkoodii dib u soo curan doono. dhalinyaradan ayaa waxaa hoggaan u ah sida la sheegayo ninkii lagu magacaabi jiray ee siyaasiga dhalinyaradan ayaa waxaa hoggaan u ahaa Jawhar Maxamed oo hadda u xidhan dowladda federaalka Itoobiya asagoo lagu eedeeyay inuu kacdoona iyo dhib iyo rabshada uu ka kiciyay gobolka Oromada. sidoo kale dowladda federaalka Itoobiya ayaa wasaaraddeeda gaashaandhigga habeennimadii xalay waxay soo saartay inay kooxda TPLF ee ku sugan gobolka Axmarada ay soo dhibaan sida ugu dhaqsaha badan u yaraan 4 bari. dowladda federaalka ayaa ku eedeysay maleeshiyaadkaasi inay gubaad meelaha ka geysteen sida ugu dhaqsaha badan la soo afjari doono. dowladda ayaa waxay sheegtay inay 4 bari u qabatay haddii ay soo dhiibi waayaan sharciga la horkeeni doono wax dhuma iyo wax dhaarraacayna laga dhigi doono. tan iyo kulanti dambe wacan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.